ما شير دولنا معها شير قف شخصي أما سجل لو قلت بعتها يرى معها قف أقل لو قلت منها يرى معها وشير بيش بهاجول هذا يسكو قلت بيت أودك بوربو رومية عامة نابلدون دولة أودين قرر هويين قرر ألينيرا يسكو بعدين بيش بهاجول taas oo iskaga imaadeen inay ka tashadaan hay'adihooda iyo noloshooda iyo deegaanka ay degan yihiin wixii ay ka mudan yihiin muddo hadda 6 sano ah ayadoo meeshaan maamullo ka jireen laga sameeyay ama federaal ha ahaato ama meel gaar ha ahaato dowladihii jiray oo la dhisayay ay sameeyeen 6 sano inaan ku go'aamay maamul karo magaaladan laga sameeyay oo nin Cabdikariin la yiraahdo uu sameeyay hormada ay ku lahayd bahaguleed iyo bulshada ay ku lahayd waa deegaankii dadkii deganaa waa dadkii loogu yimid oo marxaanka degan ay deegaan ugu yihiin oo loogu yimid hormadii laga baday iyo haduu alla ku rooyahay wixii laga baday waxa wada u nahay haddana markaan fiirinay wacyiga lagu jiray iyo xaaladaha lagu jiray haqma qarsooma haaqan iyo dhul waxaa dhamaada haaqan haqanaga inaan heli doono insha allahu dadka iyo dalkana ayna anaguna ceersanin dib aan samaynay ama operation aan kicinay ama wax aan abuurnay inaynana sababsan yaa ku sameynay 6 sano waxaa ka dambeeyay 6 sano markay dhamaatay cadli aan helnaa iska dhaafay iyo xurmo aan helnaa deegaanka aan ku lahayne dhulwaagii hashan furuyaha ka jiray naasaana ka jiray maxay ku nuugtaa maxay ku nuugtaa iyo kala yaa yimid oo ka yimid dowladda hadda degan xamar oo farmaajo madaxda annaga haduu alla ku rooyahay eersareynay Jubbaland magacii la baxay وجبلان أنا وإرسلين لو أنت ما باقول يدوي دقن أنت ما باقول يدوي دقن واحد مسؤولية أو مناشئة أو وحي مضمت هاي أي كاشي إنما هي راتب مع الله لما يحاول متى ويل بان وشيء المالية اللي يودوا لكورون يعني بار يرسك وروا مركب ومعدل باقول إذا دقنت هاي ودقموي كاس ماشى وبلارن ويدقنت هاي بمضاد الله قبل الله إلى ماشى اللي قاعد يعدوا لك كله هاي جلس كسوي واحد بيرسوي ومجالات السارة هل بيام بس الله أنت كلا باقول وباقول اسكت عادي عيالك الله قبل الله بمضاد هذا ماشى اللي قاعد هلا مرر هلا مرر ماشي اللي قاعد ودك كذا واحد بير سارنا والله ما مسوى 6 مسوى واحد لم وباقول هو بيلا ذاك بي اسكدا اسنا وركي لقى بلا بوطد الى ماشي اللي قاعد قدمي والله ايضا سيدات هاي مر هدا وين حرمدي aan ku lahayn deegaanka korna aan u hadalnay hoosna aan u hadalnay waa tashanay marka daan baagweedna wax soo nimi taraw taladaasoo inaan qofna wax u dhimin shakhsina wax u dhimin qabiilna wax u dhimin danta anagu aan leenahay naftanadii maalkanaga bas inaan ka hadal hadaan weydo dawlad cadli ah oo qof walba uu leeyahay waafajiso hadii la waayay oo maamulka ay dhisayaan mid dawlad waafaqsan sharcigeedna aanan ahayn mid qolo iyo qabiil waafaqsan oo war adinka isqaanaysa maamul ka soo dhac qabta aanan ahayn dawladnimada loo sheeganayo ka nasiib ka nasaac dawlad wax waa kala bedeshaa ama cadli ha ku fogaato ama ha u dhawaato inay qaam mas'uuliyadda dawladda waxna ku bedesho waxna ku dhisto awoodeed inaynan lahayn oo shacabku u bandhigto tiraadeen nabaddoonada war meesha maamul baa laga rabaa deegaanka si loo kala degan yahay adinka la yaqaan la imaad inay tiraahdo waa jid la karto midna ma gudoomiye ninkaan ka qaaday waxay ku leedahay in adeerkii baan u dhiibay haddana ma nidaam dawli baa macadli baa sidaa degan gado iyo Soomaali ilaahay
labadaa qodob midna markii waafaqi weynay xurmadii aan ku lahayn deegaankana aan weynay sidaa soo socotaan go-aansanay haddaan beesha bahagugeyn cid kastana waan ogeysiinaynaa arrinka asaga hadday nimanka xamarka ay jooga yihiin nin kasta oy qusaysaan ogeysiinaynaa maalkanaga iyo naftanada in loola badbaadiyo oo maamulka la magacaabay annaga wax dana oo noo haya iyo xurmo ah midna ayna jirin waxaan go-aan ku gaarnay inaan nala shaqayn shaqana aanan ku lahayn naftanada iyo maalkanagana noola badbaadiyo farmaajo ciidankiisa qoriga wata ammaan aan ka helno maamulku magacaabay ammaan aan ka helno cashuur uusan soo doonan ridtaana iyo haltaana iyo maalkaana iyo bar iyo beer midna inaanan laga qaadin wax cashuurka ciddii noogu imaado oo awood noogu sheegato qori wadato dee dad baana dad nool oo jiraan qori ma wadano xabado ma wadano jabhad ma nihin urur ma nihin dawlad ma nihin dad rayad ahaan haquuqda la haddaan weyno marka inaan isbadbaadinna naftanada iyo baalkanagana aan badbaadsano go-aankanaga kaas wey waxaan u sheegaynaa dowladda farmaajoe xamar joogta ee nimankan ka nasiib ka nasaar gobolka gadal ugu soo dirsaday naftanada iyo maalkanaga inay noo badbaadiyaan amnigoodii awooddoodana ay naga ceshadaan annagana taanada ay ka nabadgalaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagu waxaan ka hadlaynaa danta bahaguuleed 7 lafood weeyo waa laandheere meel ayna dalka soomaaliya ka deganayn waa yarta sida gobolka Gedo 7 degmo oo buurta ka mid tahay meesha la yiraahdo magaceeda Kismaayo xamar meel ayna dalka dibad iyo gudo meel ayna joogan bahaguuleed way yarta dad aqoon-yahanaa ku jiro profesaraa ku jiro misaraa ku jiro dugsiyo dhaxaa ku jiro dugsaraa ku jiro kuwa hoosaa ku jiro culumo waaweyn iyo mushrikiin iyo nabadoono iyo rag muqaawiin oo aqooleyn ah ku jiro qabiilada baaxaddaas leh hal meel ah oo waxa Soomaaliya ay qaybsanayso ay ka hayso ma jiro wax tixgelin ah oo ka heshayna ma jiro kusoo urur meesha hadda ka hadlayna buurbuur weeyo buurbuur waxaa la yidhaahdaa geelu shafku ku fadhiistaa shafka baalka geela la yidhaahdo Soomaalidu dhaqato xoolaha Soomaaliya midka ugu qiimo badan wey markuu fadhiisanayo shafku ku fadhiistaa buurbuur shafdhig waxaan u nahay shafdhig baan u nahay meesha bahaguuleed shafdhig baan u nahay dadka isugu imaaday oo Soomaaliya meesha waa loogu yimid wadada baxayso oo ilaalinkiisa tahay meesha la yiraahdo garbahaare iyo buurbuur isku xirto bahaguuleed baa yaa bixisay Allah urrahmada Cabdulle Lugay ma hormuud u ahaa Cabdulle aadan Cabdulle Lugay ma madax u ahaa isaga buurbuur iyo garbahaare madaxa dadka isku xiray carradaas dawladdu uga caawinaysay ma jiro inta kale oo degmooyinka ilaalinkiisa tahay dhul oo ilaalinkiisa ku xiran wadadaan qasax dheere iyo buurbuur isku xirta markii laga saaro wadooyin la bixiyay baa dadkan kalena dad gadaal loogu yimid bay ahaayeen imaantika taariikh ahaan loo yimidna 1979 baan noo yimid dadkaanu iyo noo imaadeen waa la yaqaanaaye waxa saldhigga u ahaa meeshaan bahaguuleed dadkii saas ahaa oo la dhihi jiray Soomaalidu xeer bay leedahay nin fadhiyana Suuriya laga filay nin socdana salaan laga filay annagii meesha ilaalinkiisa deegaanka ahaydo ilaalinkiisa taa xuquuqda ahaydo nidaamkeeda iyo xuquuqdeeda muhiimadeeda inaan leenahay aan u qabna ahna mudanna waxaan ka nahay
ma jiraan wax tixgelin oon ku helayna ma jiro haddii arrimaha hadday saas yihiin waxaa weeye bahaguleed waa tashatay wax ay ku duuleysana ma jiraan laakiin لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. halkan ka sheegaynaa annagoo ah beesha bahaguleed ee joogto degmada buurdhuuba degan dowladda Soomaaliya federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland intay ka socdaan maamuleeda kala gedisan inaan annagoo beesha bahaguleed xurmadii aan hayn aan ka weynay maamulkan hadda la soo dhisay oo buurdhuuba oo loo soo dhisay sida loo soo dhisayna aanu ku qanacsanayn maamulka hore waxaa magacaabay in la yiraahdo in Cabdikaliil oo barasaabka gobolka ahaa nin mareexaan u ahaa mareexaanka dhanbuu kale aqoon magacaabahayo wuxuu ku magacaabay gudoomiyaha saddexaad buu bahaguleed isagoo u wado ku magacaabay nin mareexaan ah markii la weydiiyay wuxuu yiri soo ninkaas ma ahayn bahaguleed soo ma ahayn aqoontiisa degma ahaan dadka degmada degan oo deegaanka ah aqoontu u leeyahay intaas ahayd macruufo umuunan ahayn waxaa markaa ku dhalisay inuu nin bahaguleed u magacaabo mareexaanka buurdhuuba degan ka mid ah aqoonta uu u leeyahay aqoon la-aanta u leeyahay degmada buurdhuuba dadka degan sida loo kala degan yahay saamiga lagu leeyahay yaa sabab u ahayd hadda dowladda Soomaaliya waxay u soo dirtay maamulka gobolka Gedo khaasatan macallimow rag la socdo macallimow waa nin reer buurdhuuba ah khaasatan reer Suuriya ah mareexaanka buurdhuuba degan wuu yaqaanaa wuu kala yaqaanaa asagoo saas u yaqaano aqoon macruuf u ah beesha bahaguleed beelaha u badan oo lafdhabartu ah deegaanka buurdhuuba uu og yahay ayuu maxaan ku dhahay xaqoodii bahaguleed gaashaanka u daruuray taas u dulqaadan mayno mana yeelayno mana yeeli doono waxaan u sheegaynaa dowladda Soomaaliya madaxweynaha u sarreeyo waxaan u sheegaynaa maamulka gobolka Gedo qaybihiisa kala duwan waxaan u sheegaynaa xildhibaanada gobolka u jooga maamulka lagu matalo intaasba waxaan u cadaynaynaa annagoo ah beesha bahaguleed inaanan wax dowlad oo na soo gaartay oon ka qayb qaadanay ayna jirin saacaddan laga bilaabo waxaan caddaynaynaa xaquuqda aan leenahay hadday beer tahay hadday bar tahay intaba inaan maxaanku nagula xadgudbin oo nala badbaadiyo haddii nagula xadgudbana tilaab miduu foolxun inaan qaadi doono oo la iska dhicin doono sababtu maxaa yeelay haddii naftaada loo soo duulo reerkaaga lagugu soo duulo shareecada islaamka waxay sheegaysaa inaad isdifaacdo sharafkaaga difaacdo aad ku dhimato intaasaan waxaan u sheegaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan beesha side ugaaska mareexa beesha side intaas baan gaarsiinaynaa wabillahi tawfiiq waan ka baxay horta khayraad inta ka hadashay weeyo runtii baahida bahaguleed ay qabto way ka mug weyn inta ayada ah annagu dowladda dhexe federaalka ah hadday tahay wasiir waxba kuma lihin waa naloo diiday hadday tahay xildhibaan waxba kuma lihin waa naloo diiday hadday tahay agaasimo waxba kuma lihin waa naloo diiday Jubbaland sidoo kale waayo Jubbaland maan ka weynay gobol Gedaan ka weynay waxa maanta aan ku dirayna waa guryahanagi waaye waxaan codsanaynaa fadlan waxaan codsanaynaa guryahanaga noo daaya hantidanada noo daaya haddii ilaa iyo Muqdisho ilaa Garbahare u dhacaysay la qaatay oo naloo diiday annaga maalkanaga dowladda waxaa weeye laguma noqonahayo mana ogelin mana maxaa weeye raalli kama noqonayno na daaya fadlan ergo waayo tagada waa maasantiin oo qabiil iyo qurur iyo qabiilad ka shaqo soo dirtay oo annaga la dulantay way wax annaga ka hadlay waxaan ergoonaynaa annaga dowladda dhexe ee federaalka ee dadka soo dirsaday yaa u sheegaynaa kaftaas horta waxaa weeye odayaashii baa dhameeyey waxa kaliya oo raacinaya waxaa weeye dowladdu waxay iska dhigtay qoonaan ilaahay duleey isma duleeyo dadaan arrintaan macruuf ahayn bayna usoo dirtay degmada si loo degan yahay maxaa sida mas-uuliyiinta loo kala mudan yahay ayadaa ku tumatay markay ku tumatayna haddee wixii wanaag inay raadiso waa ayaan daro anoon hadalka badinaynin waxaan dowladda sharaftale ka codsanaynaa inay arrinta tan sida ugu fiican
in maxaan ku dhahay u tixgeliso odayaasha cabashadooda iyo ka hadalkoodana maxaan ku dhahay in sida ugu fiican inay uga qayb qaadato hadday uga qayb qaadan weyda wixii dhaca kolleyta ayadunbaa mas-uuliyaddeeda limbaynaysa asalaamu calaykum waa ka baxa